war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreetay madaxweyne uu dalka kaga joojiyay isticmaalka bacaha madaxweynuhu markuu arkay qodobada 9aad iyo 18aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobada 68aad iyo 57aad ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ee xeer lambar 23 sanadkii 2007 markuu arkay soo jeedinta guddida heer qaran ee bilicda magaalooyinka markuu tixgeliyay xilka iyo mas'uuliyadda dawladda ka saaran ilaalinta fayadhowrka deegaanka bilicda iyo nadaafadda guud ee magaalooyinka Soomaaliland markuu garowsaday in jaangoynta kormeerka iyo wax ka qabadka bulaacadaha musqulaha iyo goobaha qashin-qubka iyo nadaafadda goobaha ganacsiga sida sariibadaha iyo goobaha cuntada ay asaaska u tahay kor u qaadida iyo ilaalinta fayadhowrka markuu arkay dhibaatada ay bacdu ku hayso dhirta xoolaha caafimaadka guud ee bulshada iyo bilicda magaalooyinka Soomaaliland wuxuu go'aamiyay madaxweynuhu in ay reeban tahay soo jeedinta iyo ka ganacsiga noocyada bacda ee kala duwan sida bacmikada bacda ila qabada bacaha shirkadaha iyo waliba dukaamada ee xayeysiisyada ganacsiga in dawladaha hoose iyagoo fulinaya xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka ay ku ilaaliyaan kuna kormeeraan goobaha ganacsiga iyo warshadaha in bacaha u yaala ay ku dhameeyaan muddo 120 maalmooda muddada wixii ka dambeeyana ay ku dadaalaan wixii bedeli lahaa bacahaasi in wasaaradaha ku shaqada leh iyagoo u maraya maamulka gobolada ku kormeeraan dawladaha hoose ilaalinta iyo kor u qaadida heerka fayadhowrka deegaanka iyo caafimaadka bulshada in la joogteeyo wacyigelinta dadweynaha ee fayadhowrka deegaanka war-saxaafadeedkaasi oo ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa waxa ku saxeexnaa Naasir Yuusuf Daahir xogayaha gaarka ee xafiiska saxaafadda madaxtooyada ee Soomaaliland